السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كورسديني انجلش كا يا inoo socoto ee website-ka wax ka baro.net ee magaciiguna waa Maxamuud Axmed Xaaji. Okay, maalmahan dhan waxaan soo wadnay buugga qaybtan ayaa wadnay oo ah level 1 course buugga ayaa wadnay. Marka welina waa wadinaa buugga waa buugga primary-ga waa midka aan shaqada ku wadno waayo insha Allah. Laakiin maanta cashirkeena wuxuu ku jiriyaa ama aan ka soo bixinayaa buuggan English Grammar Guide. English for everyone, English Grammar Guide. Marka waa grammarka dhan afar buug ayuu ka samaysan yahay buugga. Guud ahaantiis English for everyone afar ayuu ka kooban yahay. Saan qiyaasayo iyo kuwa kale oo yaryarna waa jiraan. Kan ayaa ku shan kana micnaha waa marka grammarka dhan ayaa lagu soo goobay waa ujeedaa sida u buuran yahay u weyn yahay. Marka insha Allah wuxuu Ilaahay naga waafajiyo ayaan ka baran doonaa. Marka insha Allah cashirkeena marka maanta wuxuu ku saabsan yahay simple present tense ayuu ku saabsan yahay ama the present simple waa qaybta ugu horeysa tense-yada waa simple present tense. Okay, marka si fiican ila socda dadku Soomaalidu ama dadka guud ahaan qaybta ugu adag ee dhahan Englishka ama luqad walba la baranayo waa grammarka ay dhahan. waana run grammarku waa qaybta ugu adag laakiin ma ahan waxa la baran karin waa wax la baran karo waay ayaan ula jeedaa. aad buu u fudud yahay hadii aad fahanto hadii aadan meel fog wax ka fiirin oo mataqaana si fudud aad wax u aragto aad buu u fudud yahay wixiina aad ku celceliso wixii ku laabasho ay rabaan. aniga marka grammarka baranayay muddo ayay u qaadatay inaan fahmo laakiin ugu dambeyntii waa fahmay. muddadaas ay u qaadatay micnaheedu ma aha wax camal inuu ugu soo dagaay waa muddo aan ku celcelinayay wixii fiirinayay example badan fiirinayay kadibna waa ii fududaatay insha Allah. adina waxaan ku rajeynayaa aniga hal mar ayaan sharxayaa waana ka gudbayaa marar badan inuu igu soo laabto laga yaabaa sharxo laakiin adiga ayuu xil ka saaran yahay inaad wixii dib u fiiriso dib u raadiso meelo kala duwan wax ka raadiso aad mataqaanaa idaacadihii aad dhageysato joornaaladii aad akhrisato kadibna wixii naxwo aad taqaanid aad ka soo bixin karto jumladaasi naxwahee qusaysaa sentencekeed qusaysaa adiga inaad isxil qaami karta ay ka rabtaa. Okay, xogaarna iga laqad wili hergab ayaa ahayo. The present simple is used to make simple statements of facts. Simple present waxa lagu talagalay in lagu sheego ama lagu soo gudbiyo xog fudud ama xog iska caadi xog caadi in lagu soo gudbiyo. To talk about things that happen repeatedly. Repeatedly waxa lagu talagalay simple present tense in looga hadlo ama lagu soo bandhigo shayga mar walba dhaco xog mar walba ama mataqaanaa wax maalin walba dhaco. tusaale ahaan qoraxda maalin walba ayay soo baxdaa samaha. The sun rises waa simple present tense qoraxdu maalin walba ayay soo baxdaa. I eat lunch maalin walba qada ayaan cunaa. marka waxa maalin walba dhaco ama waxa runta inta waxa la to describe things that are always true ama shayga mar walba dhabta mar walba dhaco aanan waxba iska bedelaynin ayaa loo isticmaalaa. waxa maalin walba dhaco ee shayga mar walba runta tusaale ahaan qoraxdu maalin walba ay soo baxdaa waa shay run waaye ma jirto maalin aysan qoraxda soo baxaynin. marka waxaa loo isticmaalaa simple present tense. marka tusaalaha ugu horeeya aan qaadana marka I lunch every day. I lunch every day micnaha qado ayaan cunaa maalin walba. marka eraygan every day micnaheedu waxa waaye maalin walba ayay dhacdaa. marka jumlada marka gelinaysid ficilka marka gelinaysid wuxuu noqonayaa I eat ayuu noqonayaa. I eat lunch every day. maalin walba qado ayaan cunaa. marka waa simple present tense. waxa maalin walba dhacayo aanan isbedelaynin ayaa loogu talagalay simple present tense. marka waxaan rajeynayaa inaad fahmoosaan waxa maalin walba dhaco ama waxa maalin walba runta ayaa marka simple present tense lagu dhahaa. marka shuruuc ayaa jirta. hadda meeshaan she eats lunch every day. marka meeshaan ayadana waxaa galaysaa she eats lunch every day. maalin walba qada ayay cuntaa. marka maxaan u geliyay s oo inta s aan u gelin waayo sharci ayaa jira. marka sharciga dhinacaas ayaan ku sharxay
I eat lunch every day ayaa leedahay intani she eats lunch every day maalin walba qado ayay cuntaa marka waad ujeedaa wixii maalin walba dhacayo waay simple present tense is used to make a simple statement waxaa loogu talagalay horta jumlo simple oo fudud in lagu soo bandhigo oo ah jumladaas oo ah shayga mar walba dhaco ama shayga xaalad run ah mar walba ah ama xaalad run mar walba ku jiro aanan isbedelaynin ayaa loogu talagalay I eat lunch every day she eats lunch every day maalin walba qado ayaan cunaa maalin walba qado ayay cuntaa okay marka sababta she is as u raacayso oo aydana ss u raacaynin ayaan rabaa inaan dhinacan ku sharxo marka sharcigu shaygu waa sharci waay muxuu sharci u yahay la isma weydiinayo laakiin sida uu yahay ayaa u qaadanaynaa hadduu shaygu sharci yahay siduu yahay ayaa u qaadanaysaa markaad jumlo samaynaysa ama simple present tense samaynaysid how to form sida loo sameeyaa waxaad u baahan tahay marka hore subject ayaad u baahan tahay kadibna verb ayaa u baahan tahay kadibna jumlada inteeda kale ayaad u baahan tahay I waa subject waay aniga waay you waa subject we waa subject they waa subject he she it dhammaantood marka waa subject laakiin waxaa la dhahaa kuwan waa magacuyaal ama pronouns ayaa la dhahaa waxaa soo geli karo waxa walba soo geli kara shabti naqan karo magac oo kale subject naqan karo kale ali oo kale subject oo naqan karta laba magac naqan karta ali and asha oo kale laba magac oo kale subject ay naqan kartaa marka subjectigu waa shayga qofka ama matqaana waa ficilka waxa sameynayo ayaa subject la dhahaa marka ama wuxuu naqan karaa pronoun ayuu naqan karaa magacuyaal oo kale I you aniga ama magac rasmi ayuu naqan karaa ali ayuu naqan karaa ama dad badan ayuu naqan karaa ali iyo caasho iyo qadiijo iyo matqaana magacyadii badan ayaa tixi kartaa intooda marka subject ay isku naqanayaan subjectiga markaad hesho waxaad u baahan tahay verb ayaa u baahan tahay verb oo ah ficilkii qofkii waad haysataa kadibna waxaad u baahan tahay ficilkii oo sameyn lahaaya u baahan tahay tusaale ahaan marka eat ayaan isticmaalayna hadda eat ayaan ku ekeenaynaa okay marka I you we iyo they eat ayaa leedahay I eat you eat we eat they eat ayaa leedahay every day ama lunch raac hadaarta meeshaan lunch dheh lunch every day maalin walba qado ayay cunaan okay he she iyo itna maxaa leedahay kuwa naga titir marka he iyo she iyo itna waxa waaye eats s ayaa gadaal ka raacayso okay adiga asaga iyo ayada iyo itna waxaa loo isticmaalaa wixii aan bini aadan ahayn hore ayaan uga soo sheegnay wixii aan bini aadan ahayn xayawaan ama shay aan naf lahayn ayaa id loo isticmaalaa eats s ayaa raacayso laakiin I you we theyna waxaa raacayso waxba ma raacaysaan dhahna eat ayaa leenahay lunch every day he eats lunch every day she eats lunch every day it eats lunch every day okay intaas waa fahanteen aan rajeynayaa sida sharciga loo sameyn lahay okay marka qaybtan ayaan kusii soconaynaa marar badan waxaa jirto oo isbedelaysa ayaa jirto oo hadda eat s un baa raacina laakiin marar waxaa jirto ay raacayso es raacayso taas ayaan rabaa inaan sharxo halkan waa masaxayaa si aan ugu qoro kadibna sharxaadeena usii wadana okay marka waxaan dhahnay xarfaha s iyo es ku dhamaanayo ama verbska ficilka s ama es ku dhamaanayo waxaan dhahnay verbs that end with okay marka qaybtan waxaan uga hadlaynaa marka s gelinaysid iyo marka es ay qaadanayso horta inta ugu badan xarfaha badidood waxay qaadanayaan s ayay qaadanayaan he iyo shida laakiin marar qaarkood waxaa jirta oo u baahan tahay inaad es gelisid goormee waa marka waxa waaye verbs that end with sh verbska ama ficilka ku dhamaanayo sh ama ch ku dhamaanayo ama o ku dhamaanayo ama ss ku dhamaanayo double s ku dhamaanayo
ama x ku dhamaanayo ama z ku dhamaanayo ama z ku dhamaanayo and you add es for he she it dhabarka dambe gadaashiis dambe waxaad raacinaysaa es ayaa raacinaysaa markaad he iyo she iyo it aad isticmaalaysid ama ka hadlaysid oo subjectigaada ay tahay marka waxaan dhahnay he waxaan dhahnay she eats aan dhahnay he eats s ayaa raacaysa dhahnay ka waran laakiin xarafku markuu yahay xarfahan wax ku dhamaanayo tusaale ahaan oo kale I go to bed aad sariirta ayaan aadaa every night ama at 9 at 9 iska dheh sariirta ayaan aadaa 9 habeenimo ama 9 fiidnimo marka he ka dhigaysid maxaa waaye go maxaa u dambaysaa dhan o ayaa u dambayso waxaad dhahaysaa marka qalinkan aan ku qoro I go he goes ayaa leedahay he goes es ayaa raacinaysaa laakiin sidaan ma dhehaysid goes ma dhehaysid s kaligeed ma raacinaysid he goes ayaa leedahay waxaa raacinaysaa es ayaa raacinaysaa marka waa fahanteen rajeynaya goes es I finish work shaqadii ayaan dhameeyay marka she aad ka dhigaysid maxaa leedahay she finishes es ayaa raacayso marka hore waxaan dhahnay eat markaan dhehayna maxaan dhahnay she eats ayaan dhahnay s kaligeed ayaan raacinayna laakiin hadda maadaama sh ay ku dhamaanayso waxaan raacinaynaa dhahnay es ayaan raacinaynaa dhahnay marka tusaalayaal badan ayaa meeshaan kusoo qoray waxaa kamid ah oo kale I watch TV waxaa kaloo kamid ah marka waxay noqonaysaa she watches ay noqonaysaa es ayaa raacayso okay I cross the road okay she crosses the road jidka ayay goosaa you fix cars baabuurta ayaad farsamaysaa ama aad kabtaa he fixes es ayaa raacayso they teach English ayay baraan he teaches English waa ch ayaa u dambaysa ujeedaa kana x ayaa u dambaysa marka waxaan rajeynayaa inaad fahanteen qaacidadeeda ama table yar ayaan sawirayaa kadibna wax yar oo la dhaho half iyo has ayaan ka hadlaynaa kadibna cashirka waan soo gabagabaynaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo okay marka qaybtan waxaan uga hadlaynaa waxa la dhaho half in simple present half in simple present ayaa leenahay marka ereyga half waa haysasho ama waxa aad haysatid I have a car haddaa dhahdo kale I have a car okay gaari ayaan haystaa markaa rabtid marka he iyo she iyo it markaa rabtid maxaa leedahay he has ayaa leedahay he has a car okay he has a car okay it has a car baabuur ayay haysataa marka simple present tense mar walba aad joogtid he iyo she iyo it waa ay ka duwan yihiin nidaamka kale I iyo you iyo they way ka duwan yihiin marka table yar ayaan u sameynayaa oo qorayaa kadibna waa cashirka waan soo gabagabeynayaa marka waxaa waaye marka waxaan dhahnay I you we iyo they waxay qaataan ayaan dhahnay waxaan leenahay half ayaan leenahay half he she itna waxaan leenahay waxay qaataan has okay I have a book okay I have a book okay you have a book they have a book we have a book he has she has it has a book marka waxaan rajeynayaa inaad qaybtaas fahanteen insha Allah cashirka halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu